130 ka mid ah dadkii ganacsiyada yaryar ku lahaa isgoyska Zoobe ee uu ka baabi'iyay qaraxii 14 bishan ka dhacay isgoyska Zoobe magaalada Muqdisho ayaa maanta taakulayn loo sameeyay si goobahooda ganacsi dib ay u soo celiyaan. Guddiga taakulaynta qaran oo hogaaminaya gudoomiyahooda Maxamed Sharwax ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay sidii loo caawin lahaa dadkan, isagoo uu sheegay in qorshayaashan lagu caawinayo dadka goobaha ganacsi ku lahaa isgoyska Zoobe ay sii socon doonaan. ayaan maanta haddii la yiraahdo wax siinayna dadka loo shidayaa berito oo bishii 8 200 qoys ayaan haddii la yiraahdo sidoo kale u samayn doonaa. waxaan rajaynaynaa markaas in muxuu ahay qaybtii hore 95% dadkii in la gaaray wixii harana waxa weeyaan waanu sii wadaynaa haddii la yiraahdo. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan dadkii Soomaaliyeed oo ka qayb qaatay gurmadkan dhacdadii foosha xumayd 14 Oktoobar. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ergada ka socota maamulka Puntland oo hadda halkan ay nagala joogaan Sheekh Fuad iyo Maxamed Cabdullaahi. waxaan kaloo u mahadcelinayaa ganacsatada aagga Zoobe oo aad looga shaqeeyay in dadka maanta la soo helo tirakoobkooda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu sheegay in gobolka Banaadir ay ka go'an tahay sidii loo garab istaagi lahaa dadka muwaadiniinta ee ku hanti beelay qaraxii isgoyska Zoobe ka dhacay. waxaana uu sheegay in duqa Muqdisho uu rajaynayo in tallaabooyin kale oo wax ku ool ah oo lagu caawinayo ganacsatadu ay sii qaadaan, isagoo xusay in muhiimad gaar ah gobolka Banaadir ay kaga dhigan tahay maadaama halka musiibada ay ka dhacday ay tahay magaalada Muqdisho isagoo mas'uul uu ka yahay. waxaana uu sheegay in ay ka go'an tahay sidii loo caawin lahaa dadka muwaadiniinta ah ee ku hanti beelay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. waxaan rabaa marka aan wax badan sii badinaynin inaan kamaamul gobolka Banaadir magacooda ku hadlayo. annaga waxaan u taaganahay oo waajibna ah oo nasaaran dhammaanteeda inaan si niyad wanaagsan isku garab istaagno. midda xigtana deeq kasta ee na soo gaarta dal iyo dibad ha naga soo gaarta qof iyo qaran ha bixiyo inuu siduu ilaahay ugu og yahay loo maareeyo loo maamulo dadkaas loogu talagalana ay gaarto. intaa waxaa dheer marka midda maanta loo joogo 133 oo halkan joogta ee ganacsadaas ka mid ahayd ee maanta barnaamijkan ee gurmadkan degdega hadda lala gaarayo ilaahay iyagiis waxaan joogtayn doonaa insha Allah tacaala. tani waa tallaabo kale oo lagu dhiirigelinayo dadka goobaha ganacsi uu kaga baaba'ay qaraxii 14 bishan ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. dhammaan mas'uuliyiinta halka ka hadla waxa ay sheegeen inay ka go'an tahay caawinaadda dadka kale ee musiibada ay siitay, gaar ahaan dadka goobaha ganacsi uu ka baaba'ay, iyada oo la filayo in wajiga labaad leh berita lagu caawiyo isla magaalada Muqdisho. Maxamed Alxaaji, telefishinka Goobjoog, Muqdisho.